بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada kulmiye channel qaybtiisa sportska. Waxaanu ku eegaynaa kulan maanta dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Aston Villa kaasoo ka dhacay gegada Old Trafford ay ku ciyaarto kooxda Manchester United halkaas ay ku martiqaadeen kooxda Aston Villa. kulankaas kulan aad loo wada sugayay buu ahaa maadaama United ay soo gali kartay kaalinta labaad ayagoo ku dhibco noqonaya kooxda Liverpool. kulankaasi oo ahaa kulan aad u adag maadaama labada kooxood ee Premier League kaalmo fiican ay kaga jiraan. kooxda Aston Villa oo ah koox aad u adag xilli ciyaareedkan Premier League ayaa ka badisay kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo goolal aad u badan ay ku garaaceen halka ay isbuucii la soo dhaafay ay la galeen baraajo kooxda Chelsea. haddaba kulankan oo ahaa mid aad u weyn ayaa Manchester United waxay guusha ku raacday 2 gool iyo gool. qaybta hore ciyaarta ay Manchester United ku horumartay goolka halkaas oo lagu kala nastay 1-0 qaybta hore ciyaarta, balse markii la soo noqday qaybta dambe ee ciyaarta markay soo galeen labada kooxood ayaa kooxda Aston Villa waxay la timid goolkii barbaraha uu dhaliyay ciyaaryahankooda kabtanka oo ah kooxdaasi ee lagu magacaabo Jack Grealish, halka kooxda Man United daqiiqada kadibna ay heshay goolkeedii labaad oo u keenay ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxdaas ee Bruno Fernandes oo baryahani aad looga yaaban yahay xagga gool dhalinta iyo caawinta intaba. Man United ayaa taas ugu suurta gashay in ciyaarta markii ku dhamaatay 2-1 inay soo gasho kaalinta labaad ayagoo ku dhibca kooxda Liverpool ayagoo wadaaga labada kooxood dhibco isku mid ah balse lagu kala duwan yahay goolasha. daawadayaal waxay noo balana barnaamijka xigo oo aan kaga hadli doono kulamada soo socda horyaalka Premier League oo la ciyaari doono maalinta Sabtida oo Brita iyo kulamada kale oo hadda la ciyaari doono iyo natiijadii ka soo baxa anagoo falanqeyn doona. Si aysan ku dhaafin barnaamijka, saar subscribe, beelka taabo, kadibna la share gareey asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka.